السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله فرماجو أيام مانتا حير مدحوينكم مقعابي قدقة دبوه الشيسينتا يوضا حضر جمهورية فدرالك الصومالية iyo Somaliland madaxweynuhu markii uu arkay ahmiyadda weyn ee ay leedahay iyo qiimaha ay ku fadhido dib u yegleelida qaran Soomaaliyeed oo midaysan kuna dhisan mabaadi'da tala wadaaga wadaniyadda cadaaladda iyo isku duubnaanta markii uu arkay in ay lagama maarmaan tahay in dib loo bilaabo wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland kuwaas oo ay ujeedadoodu ahayd in xal waara oo mira dhale laga gaaro tabashooyinka walaalaheen Somaliland madaxweynuhu markii uu dhageystay waxa uu tixgeliyay talooyinka ay soo jeedinayaan siyaasiyiinta mas'uuliyiinta aqoon-yahanada waxgaradka iyo waayeelada Soomaaliyeed ee ku aadan xal u helidda arrimaha Somaliland waxa uu magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood waxa gudoomiye guddigaas oo ah xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil sidoo kale waxa guddiga gudoomiye ku xigeen oo ah Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gulwade sidoo kale waxa jira 4 xubnood oo lafdhabar u noqon doona guddigan kuwaas oo kala ah Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Baadiyow Dr. Ali Saciid Fiqi sareeye guuto Axmed Jaamac Muuse iyo xildhibaan Ali Axmed Jaamac Jingeli guddigan waxa hagi doona oo ay ku shaqayn doonaan dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala waxana waajibaadkooda ka mid noqon doona in ay dawladda federaalka ah ku metelaan wada hadallada isla markaana ay hogaamiyaan in ay diyaariyaan daraasad tifatiran oo ku saabsan dhinacyada sharciga siyaasadda taariikhda dhaqan dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ku aadan wada hadallada inay tala bixin joogta u soo jeediyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ka tala bixiyaan geedi socodka wada hadallada waa mahadsantihiin